Libaaxu waa xayawaan aad u weyn oo duurjoog ah, hilibkana cuna. Waxaa lagu magacaabaa boqorka xayawaanka sababtoo ah waa ugaarsadaha dhammaan noolaha ku dhex nool kaymaha. Libaaxa kan labka ah waxaa loo yaqaannaa aar, tan dheddigta ahna waxaa loo yaqaannaa gool. Waa xayawaan aad u khatar ah, waxa uuna ku nool yahay koonfurta qaaradda Afrika iyo Hindiya. Libaaxu waxa uu cunaa hilibka xoolaha, dadka, iyo dhammaan xayawaanka. Waxa uu ku qaangaaraa 2 iyo 2 bilood, balse waxa uu goosha rimiyaa ama qaangaaraa marka uu gaaro da'da 4 jir. Waana mid ka mid ah qoyska bisadaha. Seentiisu kuma xarakoodo kaliya ee waxa uu u tusaaleeyaa jihada uu weerar tegayo ama inuu ugu yeero libaaxyada kale. Waxa uu awood u leeyahay inuu miciyaha dib u celiyo, mana la arkayo waqtiyada uu carruurtiisa la ciyaarayo. Dherer ahaan miciyihiisu waxa ay gaaraan 1 inji iyo bar. Ilkihiisu waa 2 qayb oo lamaanan sida maqasyada oo kale, isagoona u adeegsada ugaarta si uu u qabsado. Hilibka ma calaajiyo oo cadcad ayuu u liqaa. Dhagoortiisa waxa uu u adeegsadaa inuu ku salaamo goosha uu ilmaha ka dhalo. Haddana isagoo awooddaasi leh, libaaxa waxaa jiro xayawaanno uu si aad ah kaga baqo, kuwa oo kaymaha kula nool. Waxaan halkan idinkula wadaagi doonaa macluumaad ku saabsan xayawaanka uu sida dhabta ah uga baqo libaaxa. Yaadado, kashiito, ama aan si kale u dhigo, caano-qub iyo dhido, intaba waa loogu yeeraa xayawaanka uu sida dhabta ah uga baqo libaaxa. Aanu ku dhiiran karin inuu ugaarsado sabab la xiriira qodaxda dhaadheer ee korkeeda ka taagan, kuwa oo difaac u ah. Waxaa la sheegaa in libaaxa ka baqayo inay duraan bixiyaha qodaxda leh ee ka taagan dahaarka kore ee kashiitada, kuwa oo halistooda aad u sareyso. Haddii ay mar gaaraan meel ka mid ah jirka libaaxa, uu halis badan ka dareemayo. Libaaxa ayaana halis ugu jiro inuu u dhinto filayaasha kashiitada, maadaama aanu awood u lahayn inuu iska saaro. Sidaa daraaddeedna libaaxa kuma dhiirrado kashiitada. Kashiitada waxa ay caan ku tahay inay leedahay ilko seefo ah. Ilkahaasi ay ku goyso geedaha leh hahada ama moobahda, iyadoo aanu cunin dhirta, balse kaliya ay jarjarto. Waxa ay leedahay godad u gaar ah. Soomaalida qaar ayaa qasho iyagoo sheegaya inay dawo u tahay xiiqda ama neefta. Waxa ugaarsada bahallada qaarkood. Sidoo kale waxa ay leedahay bixiyo qodax ah oo ay isaga difaacdo dhibayaasha soo weerara. Dadka qabto waxa ay sheegaan inay xagxagato. Waxaa jira noocyo kale oo ka mid ah bahda dhidada oo la dhaho xidhig-dhul, waana nooca ugu yar noocyada yaadadada ee caalamka ka jira. Soomaalida waxa ay aaminsan tahay inay tahay xayawaan samada ka soo dhaca, ma dilaan mana shareystaan. Inta badan geedaha hoostooda iyo godadka qaxabaha ah ayay ku nooshahay. Koonfurta Soomaaliya, kashiitada waxa ay ka mid tahay xayawaanada laga ilaaliyo dhul-beereedyada, iyadoona caan ku ah cunidda dalagga beeraha. Daawade, haddii aad ka heshay muuqaalkan, la sii wadaag saaxiibadaada, sidoo kalena follow boggaan. Mahadsanid.